صاحبي الرسول بعد 10 كان قلبت إن شاء الله 10 كان قلبت وحكوساب سنان دونا short English conversation short English conversation short in English conversation عندنا short English conversation 10 يرو قابن وإنجليش وكساب سنان دونا إن شاء الله سدال كان إنه مغطى short English conversation 10 قابن والله وقف صاحبه ودحي Good morning my friend Good morning to my friend Where are you from I came from my home country waxaan ka imaaday waddankayga hooyo which is your home country waa kee waddankaaga hooyo my home country is Somalia where is Somalia located it is located at the horn of Africa geeska Africa ayay ku taallaa Somalia is a country that affected by the civil war for the last 30 years though Somalia has affected civil war, but we have a strong, although Somalia has affected civil war, but we have a strong people who have a full confidence. What kind of hope do you have? Our country is rich for raw resources and active and we have a very active manpower. هل مرة كو علينا نواب سومالي كو شرحينا وداي good morning صباح وناكسن good morning my friend صباح وناكسن صاحب good morning to friend صباح الله ماذا سيدو كله Where are you from today? maanta xagee ayaad ka timid I came from my home country waxaan ka imaaday waddankayga hooyo which is your home country kee waaye waddankaaga hooyo my home country is Somalia waddankayga hooyo waa Somalia where is Somalia located xagee ayay ku taallaa Somalia it is located at the horn of Africa geeska Africa ayay ku taallaa Somalia is a country waa waddan that affected by the civil war for the last 30 years waa waddan 30 sano u dambeysay dagaalo sokeeye ragaadiyeen though Somalia has affected the civil war but we have a very strong people who have a full confidence wada ninkani though inkastoo Somalia has affected civil war inkastoo Somalia dagaalo sokeeye ragaadiyeen but laakiin we have a strong people waxaan haysanaa dad aad u awood badan who have a full confidence kuwaasoo leh kalsooni dhammaystiran waa garanay wada marka what kind of hope do you have rajo noocee ah ayaad haysaan ama aad leedihiin our country wuxuu dhaha waddanka annaga is a rich for raw resources waddanka annaga waxaa ka buuxa our country is rich wuxuu qani ku yahay for raw resources khayraadka cayrin ayuu qani ku yahay and we have waxaan haysanaa very active manpower waxaan haysanaa dad aad u awood badan oo active oo shaqaysan kara dadka shaqayn kara awoodo inay shaqeeyaan shaqada awoodo inay qabtaan waxa la manpower marka intaas ayaan ku deenaynaa insha Allah wixii kale aan ku dari karaan idinku ku soo kordhiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.